kusoo dhawaada channelka Banaadir Films waa anigoo ah Liibaan Ibraahim. Dhammaan inta channelka soo gasha waxaan idinka codsanayaa in aad channelka subscribe ku dhufataan. aad iyo aad u mahadsantihiin. muuqaalkii ugu dambeeyay aan soo dhigay oo hadda laga joogo muddo 3 bilood aad iyo aad aan uga xumahay arrinta. waxaan rabay inaan muuqaal soo dhigo si degdeg ah laakiin way ii suurtoobaysay arrimo maxaa la yiraahdaa shakhsiyadeed awgeed. marka maanta waxaan aad iyo aad u jeclaystay in aan soo dhigo muuqaalkan oo aan uga hadli doono waxa uu yahay shutter speedka. muuqaalkii hore waxaan uga soo hadalnay waxa uu ahaa maxaa la yiraahdaa waxa uu yahay ISO-ga iyo qaybta uu ka yahay maxaa la yiraahdaa marka la duubayo muuqaal professional ah ama video maxaa la yiraahdaa professional marka la rabo in la duubo ama cinematography habka loo duubo qaabka loo adeegsado ISO-ga shutter speedka iyo aperture-ka oo aan ka hadli doono video soo socdo videogan kadib. waxaan idin ka codsanayaa dhammaan sidaan idin sheegayba in aad channelka subscribe ku dhufataan qaybtaas meesha inaad subscribe ku dhufataan kadibna gambaleelka aad riixdaan oo aad taabataan all oo macnaheedu ay tahay video walba oo aan soo dhigo ayaad markaas helaysaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. shutter speed aad iyo aad ayuu muhiim u yahay markii la duubayo muuqaal aad iyo aad u qurux badan ama muuqaal oo dhan markii la duubayo video hab professional markii la duubayo aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. marka koowaad waa inaad samaysaa sida hadda muuqaalka idinkaga muuqdo. waa inaad hoto frame rate-kaaga iyo shutter speed-kaaga waa in aad isku dheelitirtaa. yani qaab waxaa jira la isugu dheelitiro. misaal ahaan marka shutter speed-kaada uu yahay 25 maxaa la yiraahdaa frame rate-kaada marka uu yahay 25 shutter speed-kaada waa inuu yahay 50. waa maxay shutter speed? waa maxay shutter speed? shutter speed waa laba eray. ereyga koowaad waa shutter kan kalena waa speed oo macnaheedu shutter macnaheedu waxa waaye furitaanka waaye. meesha hadda kaamirada muuqaalka idinkaga muuqdo ayaa la yiraahdaa meesha isha kaamirada looga xiro afar geesoodkaas aad aragtaan ayaa la yiraahdaa shutter. sida hadda dhawaaqo aad ka maqashaan markii aan riixo meesha speedna waxaa la yiraahdaa xawaaraha macnaha yani oo ku soconayo maxaa la yiraahdaa isfuritaanka isxiritaanka. inta uu isxirayo ayaa marka iftiinka uu ku dhacaya sensorka kaamirada taa ayaa la yiraahdaa marka speed shutter speed furitaanka iyo xiritaanka xawaaraha uu ku socdo. marka waa muhiim frame rate-kaaga marka koowaad in aad yani aad ogtahay frame rate-ka aad ku duubayso. misaalan hadda waxaan riixayaa kaamirada sida ka aragtaan qaybtaas 24 frames ayaan doortay. kadib waa inaan ka dhigaa shutter speed-kayga 50 sida hadda aan idinkugu tilmaamay sida muuqaalka hadda idinkugu tilmaamay aad aragtaan. taa ayaa la yiraahdaa marka maxaa la yiraahdaa marka la isku dheelitirayo shutter speed-ka iyo frame rate-ka. marka shutter speed-ka wuxuu wax ka bedelaa habka u adeegsanaysid maxaa la yiraahdaa duubista nooca aad duubaysid ayay ku xiran tahay. مثلا هذا action oo kale markii la duubayo ama maxaa la yiraahdaa sportiga oo kaleentood ama baabuur oo kaleentood markii macna waxa xawaare xoogan ku socdo waxa fiican maxaa la yiraahdaa shutter speed in kor loo qaado si macna hadhood loo helo. hadda sida muuqaalka idinkaga muuqata gacanteeda muuqaalkan shutter speed-ka xawaarihiisu waa mid aad u dheer 4000 waaya 14000 ayaan ka dhigay sida farta guduudan idinkaga muuqato. maxaa la yiraahdaa tiradaas 14000 oo macnaheedu ay tahay marka waxa aragtaan gacanteeda inay almost ay taagan tahay oo farihii wixii dhan si fiican ay u muuqdaan. dhaqdhaqaaq walba aan sameeyo yani waa arki kartaan macnaha gacmahayga si very detailed ah ayaad u aragtaan. taa oo macnaheedu ay tahay high shutter speed ayaan yani idin tusinayaa macnaha muuqaalka sida uu noqonayo sida hadda aad aragtaan. marka muuqaalka xigana oo hadda soo galaya asigana muuqaalkan waa 1/5 shutter speed waa shutter speed aad iyo aad u hooseeyo
maxaa yeelay waxaan isku dayay maxaa shutter speedka inaan aad u dhigo 1/5 shutter speedka hadda waa 1/5 taa oo macnaheedu tahay markaan dhaqdhaqaaq yar haddii aad samayso kaamirada markii aad wax duubayso يعني wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo blurry ama ciir ayuu noqonayaa muuqaalkiina si fiican looma arkayo marka waxa ku qasbantaa inaad si tartiib inaad taagnaato oo aan isdhaqaajinin ama waxa loogu talagalay filimada marka la duubayo waxyaabaha dreamka oo kale ama riyada oo kale ama meelo qaas ah oo aad yani waxyaabaha u badan looma adeegsado marka meelaha sirka oo sida dreamka oo kale kaliya baa loo adeegsadaa muuqaalka saddexaad ee ugu dambeeyo asigana waa muuqaal hadda shutter speedkiisi iyo maxalliga frame rate isku dheelitiran yahay marka fiirisid waa muuqaal natural muuqaalkan waa isha bini aadamka sida ay u aragto qaabka ay wax u arag ama sida ay u qabato maxaa la yiraahdaa iftiinka ama muuqaalka ay u qabato oo kale ay hadda kaamirada ay idinkaga muuqdo oo ah 1/5 frame rate kayga waa 24 shutter speed kayga waxaan ka dhigay 1/5 marka taa oo macnaheedu 1/50 oo macnaheedu ay tahay frame rate iyo shutter speed oo isku dheelitiran marka inta ayaan rabay inaan idin tusiyo muuqaalkan aad iyo aad u mahadsantihiin xusuustana subscribe in aad saartaan sidaan hore idinkugu sheegay subscribe-ka meeshaas ayaa ku dhufanaysaan kadibna gambaleelka all ayaa taabanaysaan si aad u heshaan muuqaalada aan soo dhigo dhammaantood aad iyo aad u mahadsantihiin